kulanti wanaagsan marka la saaxiibayaal waxa habeenkii xalay soo ifbaxay eedii garaad jaamac garaad cali uu soo jeediyay irir Soomaaliya taasoo ahayd inay hoos ka xiriirsan yihiin heshiisna ku yihiin duqeynta iyo xasuuqa shacabweynaha ku dhaqan gobolka Sool ee magaalada Laascaanood kadib markii xalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi isagoo marag furaya marxanti beenaale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu shaashadaha soo hordhigay ismada dhaqanka Soomaaliyeed ee ka yimid koonfurta Soomaaliya si ay xal ugu raadiyaan Laascaanood iyo Hargeysa kuwaasoo labadii bilood la soo dhaafay ku sugnaa Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa iyagoo loo diiday inay madaxweynaha iyo ismada dhaqanka la kulmaan si ay wada hadal uga galaan arrinta Laascaanood iyo Hargeysa in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu marxanti beenaale u furo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaysa xilli garaadka guud ee gobolada SSC garaad jaamac garaad cali uu caalamka u sheegay in duqeynta iyo dhibaatada ay ka midaysan yihiin Hargeysa iyo Muqdisho oo kala joogan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi oo ku jira team la yiraahdo irir Soomaaliya taasoo uu garwadeyn ka yahay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle kadib markuu xalay telefoon kula hadlay Muuse Biixi uu sheeg caalamka in wada hadal ka socdo arrintanina ay tahay arrin ka u dhaxaysa Soomaaliland gudaheeda ay tahay taasina aynu ognahay meesha wax joogan Soomaalida ayaanu deenaynaa macnaha ay ka dhigan tahay in Muuse uu Xasan u sameeyo nafis siyaasadeed kaas oo beesha caalamka uu kaga gadayo inuu socdo wada hadal u dhaxeeya Hargeysa iyo Laascaanood oo ay wada dawladda federaalka Soomaaliya waana wixii uu garaad jaamac garaad cali ka dhiidhiyay caalamkana u sheegay dhanka kale Puntland khilaaf sababay dagaal ka dhaca caasimadda Puntland ee Garowe iyo khilaafka ismada dhaqanka ee soo jireenka ee Puntland ay ku kala aragti duwanaayeen sida xalka loogu raadinayo dhacdadii ka dhacday caasimadda Puntland ee Garowe iyadoo xaalku murugsan yahay baarlamaankuna shaqadiisa uu wato oo dastuurku u furan yahay maalmo koobanna ay uga hareen bishii loogu talagalay wacyigelinta dadweynaha ayaa habeenkii xalay waxa madaxtooyada Puntland ku kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo ka soo jeeda gobolka Mudug iyo islaanka ka arrimiyay caasimadda Islaan Ciise Islaan Maxamed kaas oo abuuray isu soo dhawaansho in sidii xal loogu raadin lahaa arrinta murugtay ee ka taagan Garowe taasoo u dhaxaysa mucaaradka iyo dawladda salkana ku haysa dastuur furidda iyo jihad doorasho oo heshiis lagu yahay looga gaari lahaa doorashada soo socota halka madaxweynaha iyo baarlamaanka Puntland ay qabaan in dastuurka la furo lagana bedelo tiraka dhowr qodob oo gaaraya 30 si xal loogu helo arrinta xisbiyada badan ee Puntland kulanka madaxweynaha iyo ismada dhaqanka ayaa isu soo dhaweynaya guud ahaanba ismada iyo siyaasiyiinta ku kala aragti duwan doorashada Puntland ra'iisul wasaare Xamse ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo gaar la lahaa siyaasiyiintii horay u soo maamushay dalka ay ku jiraan ra'iisul wasaareyaal madaxweynayaal goboleedyo kuwaas oo Muqdisho u tagay ka qaybgalka shirkii golaha wada tashiga ee guusha ku soo dhamaaday waxaad ogeydeen in ra'iisul wasaaruhu uu casho sharaf u sameeyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Cali Gaas ahaana madaxweynihii Puntland talada ku wareejiyay Saciid Deni kulankaas wuxuu ku soo dhamaaday isafgarad kala warqaadasho iyo sidii loo wajihi lahaa doorashada soo socota ee dawladda federaalka Soomaaliya subaxnimadii hore saaka ra'iisul wasaare Xamse ayaa kulan gaar la qaatay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre si ay uga wada arrinsadaan waxna isaga weydiiyaan xaaladda dalka ra'iisul wasaare Xamse oo shaqada xafiiskiisa dardar gelinaya ayaa wada kulamo gaar oo la yeelanayo saamiilayda siyaasadda dalka hadday ahaayeen madax hore iyo kuwa hadda shaqada hayaba walow aysan wali jirin ifafaalo wanaagsan oo isu soo dhaweynaya Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya bal ila daawada aragtida dadweynaha ee ku aadan madaxweynihii ugu horeeyay Puntland maxkamadda dastuuriga ka dhisa oo markii ugu horeysaba ay isla maxkamaddii isaga laga dacweeyo aragtida ay shacabweynuhu ka qabaan iyadana bal aan dhageysano xaaladda wararka ee Kilwa Media adigoo ku bilaabaya magacaaga magacaygu Malaaq Aadan Cabdi Ismaan weeye
horta waxaan ku faraxsanahay maxkamadda sare oo madaxweynaha sameeyey. see u aragtaa in iyadu qallasihii Garowe dagaalkii wixii ka dhacay ay weli taagan yihiin in madaxweyne Sidi Cabdullaahi Dani laga dacweeyo maxkamadda dastuuriga? maxkamadda dastuuriga horta madaxweynaha aad buu ugu mahadsan yahay inuu sameeyo. haddana madaxweynaha wuxuu ku mahadsan yahay waa qofkii ugu horeeyay oo maxkamadda dhisay haddana asaga laga dacweey way horta waxa weeye marka waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye meel fiican baa wax gaarsiisay haddii ay ku suuroobi weysay inay baasii socotana waxa weeyaan Buntlandnimada wax walba ka weyn u tanaasul Buntlandnimadu qolyaha mucaaradkaana waxaan leeyahay waxa weeyaan nabad wax walba in lagu raadiyo bay ku wanaagsan tahay. kaalada wararka ee Kilwa Media adigoo ku bilaabay magacaaga. aad baan u dhawaa Kilwa Media bahdiisana waa salaamaya waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Ciise loo garan og yahay ahbaab. taagan yahay khilaafkii qallasii dagaalka ee ka dhacay magaalada Garowe sidee u aragtaa in madaxweyne Sidi Cabdullaahi Dani laga dacweeyo maxkamadda dastuuriga? horta maxkamadda dastuuriga haday jirto waa wax wanaagsan in laga dacweeyo madaxweynuhu dalkuna inuu dastuuri nidaam leeyahay bay cadeynaysaa waana ku mahadsan yahay madaxweyne Sidi Cabdullaahi Dani inuu maxkamadda dastuuriga noo sameeyay walow aan qabno cabsi ah wali inuu asiga daabka u hayo bahasha maxkamadda oo ay noqonayso Dani ka dacwo oo Dani u dacwo laakiin haddayna taa ahayn waa wax wanaagsan weey. marka maxaa leedahay madaxweyne Sidi Cabdullaahi Dani? madaxweyne Sidi Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay waxa weeyaan madaxweyne dimuqraadiyadda baa ka shaqeysay wax badan baa qabatay waxa joogta xilliga lagu nasin lahaa dawladuna waa qori isku dhiib inta geysay waa ku mahadsan tahay. madaxweyne Dani ayay dadka reer Puntland ku amaanayaan inuu xisbiyada hirgeliyay doorashadii dhaqaajiyay meel wanaagsan oo dalku doorasho kale u guuri karo gaarsiiyay sameeyay maxkamadda dastuuriga si looga baaqsado in dadku fara isku taagtaagaan oo qoryo la isu soo qaato walow maxkamaddii markii ugu horeysay isaga dacwad laga geeyay shacabweynaha ayaa isha ku haya maxkamadda dastuuriga ee Puntland siday u wajahayso kiiska musharaxiinta mucaaradka ah ee ka aragti duwan madaxweyne Dani iyo madaxweynaha hadda talada haya oo isagu soo magacaabay maxkamadda laftigeeda taas waxay noqonaysaa xujo waxayna xujo ku tahay madaxweynihii soo magacaabay maxkamadda iyo maxkamaddii shaqada dadweynaha loo diray waxaan sugnaaba waa natiijada ka soo baxda kiiskii ay gudbiyeen siyaasiyiinta ku kalsoon sharciga iyo kala sarreynta dalka iyagoo diiday inay qori kala hortagaan madaxweyne Dani balse ugu horreyn waxaan ka codsanayaa inaad aragtidiina hoos noogu reebtaan muuqaalkana sa u sheergaraysaan oo idin leegta kala bakhaylin aragtidiina saliimana aa ku darsataan hadday wax ka khaldan yihiin wakaaladda iyo qaabka timinteeda adoon ay tamin commentiga noogu reeb